gaarakood ka sugnee kunidaysu taagneen kuneba taladi garanoo gushii hantinee dadyow gabigiin gacmaha isqabsada dadyow gabigiin gacmaha isqabsada markaan calan gaarakood ka sugnee kunidaysu taagneen kuneba taladi garanoo gushii hantinee dadyow gabigiin gacmaha isqabsada dadyow gabigiin gacmaha isqabsada allow ku gargaar kayga nabato dadkana garasiiliyo gobanimo dadkana garasi maanta waa 18 May xuskii 18 May 2018 waa 27 guuradii maalinta inagu weyn ee qalbiga qaranka Soomaaliland ku weyn ayaynu maanta halkan ku xusaynaa waa maalin aynu ku tiirsanay waa maalin taariikh aad iyo aad u weyn oo aynu kaga samirnay 50,000 oo aan oran yaabayaashood iyo hooyooyinkood iyo waalidkood oo xornimadan u soo halgamay oo ku dhintay oo ku geeriyooday saaka waynu dabaaldegaynaa ciidamadeennii qarankuna jiidda hore ayay difaac kaga jiraan salaadii hore ciidankeennii la soo weeraray waana la jebiyey waa laga guulaystay ciddii ciidankeennii soo weerartay dhinac waynu ka dabaaldegaynaa wixiina soo weeraray qaranka Soomaaliland soo weerarana iyagoo maanta isla godolooyin badan bay leeyihiin ka faa'iideysta waynu u tumaynaa socaynkaa maaha yarkan buu oranayna caligaas waxaan leeyahay anugoy waraabow weli xakuuma leelyan warsaaka haddaad istiri waxbaa Soomaaliland ka jira haddaad istiri war meesha yaraad fadhidee garowey war wallaahi way kugu xumaan doonta war ciidanka halkan jooga ilaahay unbaa kaa haya ha isku daardaarin baan leeyahay ha u yeedhan baan leeyahay baaqigana waa lagaa soo uruurin doonaa inankaaga yaro buuranow war waxoogaagii yaraayay imaaraadku kugu soo dhiibeen waar maad daara kaga dhisatid sidaadii qarbiga iyo meelahii aad ka timid daara kaga dhiso war intaan yar yaan agshanka lagaa dhigin doorasho dambe Puntland ku soo bixid may sidaad boogta waxaan ku soo gabagabeynayaa waxaanu diyaar u nahay difaaca qaranka Soomaaliland socaynkaa maaha annagoo 20 jira oo aan ubad iyo adduuntoona lahayn ayaan waddada aan aragteen siyaad buhoo kuntaangi wata ka saarna 20 jiradinaynu hortaaganow saaka soo diyaar ma tiidin sidaasaynu isku ognahay waqtigu waa kulul yahay madaxweyne ku-xigeenkeenni baa inala jooga oo isaguna halkan khudbadiisii qiimaha lahayd inooga soo jeedin doona si wanaagsan aynu soo dhaweyn doona madaxweyne ku-xigeenkeenna intaa inoo soo safray ilaahay amrigiisa hagaajiyo halkan waxaan salaan uga dirayaa ciidamada qaranka ee saaka dagaalka ku jira difaaca qaranka Soomaaliland waxaan u dirayaa carruurtooda iyo haweenkooda mudan maanta inaan salaamo madaxweynaha qaranka iyo golayaasha qarankana waan salaamayna dhammaan reer Soomaaliland oo dhan salaam baan u diraynaa diiran reer togdheerna waxaan leenahay dagaalka halkaa dagaalka ka socda laf dhabar baynu walaalayaal maanta waxaanu u dabaaldegaynaa maalintii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland u suntanayd maalintaas oo taariikhdeeda iyo siday ku timi iyo halgankii loo soo maray iyo burburkii loo soo maray aa wada haysaan
waxaan maanta isweydiinaynaa maxay ku timi 18 May 1991 dagaal qaraar kadib barakac qaraar kadib xasuuq badan kadib halgan dheer kadib waxaa dib loola soo noqday gobolladii waqooyi ee loola jiray Somaliland British Protectorate waxay ku timi shirkii koobaad ee ka dhacay magaalada Berbera 1991 oo ay isugu yimaadeen dhammaan beeraha ku abtirsada gobollada waqooyi waa Berbera ka dhacay waxaa lagu heshiiyey in la isugu yimaado shirka labaad magaalada Burco shirkii labaad ee magaalada Burco ka dhacay oo ay isugu yimaadeen dhammaan dadka ku abtirsada gobollada waqooyi saraadiintooda siyaasiyiintooda cuqaashooda garaadadooda ugaasyadooda siyaasiyiintooda iyo hoggaankii ciidankii SNM waxaa la isla gartay in xorriyaddii aynu ku logoonay ee isku darkii 1960kii aynu ku darsannay gobollada koonfureed ee Soomaaliya ee uu Talyaanigu gumaysan jiray dhibaatadii ka soo gaadhay guud ahaan dadkii mujtamaca reer Soomaaliyeed gaar ahaanna dadkii gobollada waqooyi ku abtirsanayay waxaa la isla gartay in dib loola soo noqdo gobolladii waqooyi ee Ingiriisku gumaysan jiray sidaa daraaddeed waxaa si buuxda loogu dhawaaqay 18 May 1991 guriga Reer House loo yaqaano ee shalay aynu dhagax dhignay baa lagaga dhawaaqay go'aansitaanka Jamhuuriyadda Somaliland maanta oo ay 27 jirsatay oo inankii maalintaa dhashay gaashaan qaaday oo uu isagu wax sii dhalay war miyaynu cabsi u qabnaa jiritaanka Somaliland war miyaynu maamul yar oo daciif oo Puntland oo kala baqa uga qabnaa war miyaynu dawlad fadhiida oo aan filla Soomaaliya soo dhaafin oo magacii Soomaaliyeed sheeganaysa uga baqnaa Allahu akbar cid uga baqi mayno waynu xusaynaa maalinteenna horumarkeenna innagaa xaq u leh heshiisyada caalamiga innagaa gelayna cid aynu kala tashanaynaa ma jirto innagoo dabaaldegayna gacanta midigtana waa ku dabaaldegayna tabidixana waa ku dagaalgelaynaa walaalayaal halkan waxaan jecelahay inaan farriin uga diro waxaad maqmaqlaysay shalay waxoogaa arrimo yaryar oo aan wanaagsanayn oo ka dhacayay magaalada Burco anigu dadka reer Burco farriin baan u dirayaa nabadgelyada qaranka Jamhuuriyadda Somaliland dawladda ka mas'uula ciddii isku waxaan iya ka oranayaa Burco ninkii garanayaa wuu garanayaa ninkaan garanayni waa nasiibkii waxaanu taagnay halkanaynu joogno garoonkan laftiisa 84kii moos halkaa inagaga beegan imikay garoonku dhex yaalla oo biro ka taagnaan jireen oo 43 nin oo haldoorkii burcaynta la soo qaqabtay annagana iskuuladana laga soo kaxiyo halkaana la tubay oo layidhi daawada oo lagu laayey oo iska rubaynta sidaa loo daray cagaf sidaa loogu shubayo meydkoodii ayaannu burcada cusubey burcada sashiidaysay taasaannu soo taagnay burcada cusube waatee burcada cusube waxa weeye inankii dhashay 85kii ee isagoo 3 jira la qaxay ee isagoo 5 jira soo noqday ee dhulkood nabada arkay ee ku ganacsaday odayaal iyo salaadiin iyo dhallinyaro tiifiu taagan oo haddaannu reer hebelnahay leh ee wax ka horreeyana aan garanayn burca waxay ahaydna aan garanayn ee ku kacaamay kuwii ka waaweynaa oo xumaaday annaga nasiibkayo kuwii naga waaweynaa ayaa waxaannu ku kacaannay iyagoo burco una oo aan kala lahayn bariya galbeed waan taagnaa anigoo yar oo dhallinyaro ah maalintii kelmadda bari iyo galbeed ay baxday iskuulkana cabdalla nuuri oo garoonkii baasadka ah oo riwaayadaha lagu dhigi jiray ayay ahayd niman wasiirroo nidaamkii dawladdii siyaad barre ka tirsanaa ayaa yimi riwaayadda waa lagu dhigayey
inama leeyahay saran bay ka soo galeen oo beenana waa lagu soo bandhigay qofkii joogay maalinta joogay dabadna kelmaddu maalinta ay soo baxday burco lagu kala qaybiyay reer burcona imika ay hirgeliyeen maalintaasay ahayd inamadani waa burco dhinacaase burco dhinaca maaga baa layidhi horta maalintaasa burco bariga galbeed loo qaybiyey may hirgelin oo burco iyadoo burcaan waa tii dagaalkii halkan gashay guulaysatay markaynu soo noqonnay baynu inagu bari iyo galbeed hirgelinay bari iyo galbeed ayaynu hirgelinay maanta waxaan jeclaan lahaa inay munaasabadani munaasabad qaran u muuqato oo xisbiyadii qaranka mas-uuliyiinteedu gobolku ka muuqdaan ayaan maanta jeclaan lahaa mayse dhicin 18 May waa maalin qaran 15 May bay joogaan halaada xaal qaata halaada wamaasati halaada way joogaan salaada ilaahay ummadiisa ku waajibiyey baa duruufo markay yimaadaan waqtigeeda laga raro waqti kale la geeyaa duhur baa la raraa casar la geeyaa casar baa la raraa duhur la geeyaa maxay tahay mushkiladii dhibaatada ku jaban duruufaha faraha badan leh in maalin la soo raro xuskii uun oo aan maalin taariikhda ahayn dhibaato kuma jirto tii ilaahay waajibayna haddii loo ogolaado in la raro de waa la rari karaa wixii duruufi keento waxaa la wax dhibaato ku jiraa ma jiraan maalintuna waa maalinteedii maalintaas si aan meesha looga saarina maalinta 18 dawladdu way fasaxday shaqaalii dawladdu xuska maalinta loo fasaxay waxaan kaga baxayaa reer burco dhalinyaro waliyaalka iga soo eegayo ilmaha rayaal oo adeerayaal oo aabayaal burco bariga galbeed ma jirto meena qoonin barasaabku wakaa iskuul baan nahay oo yarmahe mugaabay hore oo iskalaas baan nahay oo saaxiibaan nahay oo ragga isugu jecel maanta reer burco saaxiibadana waxa kamid isaga iskuulka iyo iskalaaskan isaga kamid xildhibaan waagaya kamid maxamuud ali jaakuriba kamid maanta anagu burciya galbeedtoona ma kala lihin war burco bariga galbeed kala sameynina haddii aadaabayaashiin oo ku aragteen tifiyada ka hadlaya bariga galbeed reer sheegaya ilaahay baa idinku dhaariyay idinka idin gelin ilaahay baa idinku dhaariyay dhalinyaroy idin gelin burco waxaan leeyahay dumarka midda baraaya qaadatay inay ka caafimaad qabaan waa ka saafi waayo ka dhintaa waa inankeedii waa artigeedu waa walaalkeedu waa kii gurigeeda joogay waa dumaashigeedu waa sidaa ilmaha reer dhalinyaro anigu dhalinyaro la hadlaya maanta waa burco ha noqoto waxyaalaha burco iminka ay ku cusub waxa ka mid ah iskuullada qaabka loo dhigto iskuul walba inay saxaafada dhigataa sheekh ibraahim baa dhigataa oo sheekh isfu qola dhigataa oo togdheer qola dhigataa oo qasabka qola dhigataa war bariyaare waxaanu garanaynaa iyada oo inta 10 galaas laga qado sheekh ibraahim la geeyo togdheer oo togdheer laga soo qado halkan la geeyo waxaanu jeclaan lahayn wasaaradda waxbarashadu inay qaabka ula dhaqanto ardayda oo iskuullada ardayda isdhex geliso assalaamu calaykum bismillaahi raxmaani raxiim deeqaha ilaahay iyo rabbow dowladnimadayda puntland inay dunisanay doonaysaa maanta istifaacayaa laydooran doqonti weeyaane daandaasi bay nagu wadaan daakhilaaniyahe digaraare xoog laa ku dhacay duba xasuustaane dumarkiiyo carruurtaa ku filan doorkan maanta ahe midna dooran mayno hadday nabadda diidaan wadagala dagaalkood degta qoriga wada sura daarahan iswada simeen abidkood dagaal arag dudumooyinkaga dhiga dabka weyn ha gaadho dhammaan duurka wada sura ilay dowlad baatee dibaabaadka yaaliya xadka diirad wada dhiga digtoonaan ku wada jira dayartiiyo agoomaha aan ku jirin dagaalada danyaaroo halaynina hadilaa cadowgee nabadana u daafura waxaan leeyahay puntland waxaan leeyahay rag lagu diri maayo maanta dumarkiiyo carruurtaa diyaara waa talka aan u dhimanay dumarkiiyo carruurtaa maanta dagaalamaya somalilanna waxaan leeyahay nabaddu iyada innagaa ku nool iyadu inaguma noola ragna waxa xugaya nabadgelyo la'aanu meelay ku nastaan bay leeyihiin innaguna waxaynu xugaynaa nabadgelyadii oo meelay naga gashay laadahay war somalilanay dib u fiirsada war waxaad soo marteen dib u eega war halkaynu ka lugaynay ee ka qaxnay ee ku soo noqonnay lug baan kaga baxay halkaa qaaxaa lugu tegey war somalilanay dib u fiirsaa kuley somalilanay
hadduu hadalku suuqyada camiro waa col madaxii cimrigeed waxaan la arag bacaawa soo baxay midhiye macaanka ayaa la iska caayaaye cigalhiyo googa ayaa la isu celiyaaye cuqashiyo waxgaradkii ayaa gaday codkoodiiye casiiskii ilaaho wadaan ku abaraynaaye ragga yaga caqiidadii rabbow noogu soo celiye caafimaad allow si intii cudurku u gaadhay allahayow oraad iyo dagaal ciina iyo boodle allahayow cuqaal laga god iyo cunada geeriyooda caruur iyo cirooliyo allow culimo bay hoofta shacab kala cararaya allow maati ku curyaanta ragga nabadda carinaya ee caga juglaynaya ciladaha dagaal leeyahaan cidina koobayne caynaana ee bowkayeel uu cabsanayaaye ciyaar laguma helin ciidan iyo calanka doogalehe cidhownaanu soo maray ragyo curashadiisiiye kuman baa curyaano kunbaa ciidda hoos maraye kuman baa halkay cirib dhigeen caawa loogayne curyaan iyo agoon buu yahay dheemantaa culuse ragga nabadda carinaya ee caga juglaynaya ciladaha dagaal leeyahaan cidina koobayne casiiskii ilaaho wadaan ku cabaraynaaye ragga yaga caqiidadii rabbow noogu soo celiye caafimaad allow si intii cudurku u gaadhay عريان الله يسكما قرشية عينا يبوره رجع عاد لسارانا وعيبة دوكاه اسم لها الروح عاسية عيدة يدينك على كيغا الموتو رشية عيدة غرى كيغا ويوم اسم دولة نمعد الله موجاية ويوم عدونا نراعي غرساية رقنا بدا عرنا يا عدا شبلينا يا إلا ده دقال ليهان عدنا كونيني عزيزكي إليه ودان كو عبريناية رقنا يا عقيدة رب الله بسعيري عافماد الله سينتي عذر كو قاري رجل مرة دولة مكي راحة وركاوة وهذا هيلو مرة ركا جدوجه وما لقى راد وسير راه ركتير كي آخر لقول الدراية ربي العاصي وقت جوه سرف لقياية أنت رب الغرب جريرة كلا رالي جريناية رعدا عقوس جاي تنجس كتوروري تلك يكون هديار هرا عدني هينسا ريا يقول من هدان ترى كرات شوبو ربي هدي واشيطان لقى ربياية راديو بهدينا راني نمر راني من روايات لو بقى هدو حالك الرقاطو ريا كنا ريا الروح واركتاية ربي العاصي وقت جوه سرف لقياية روحي وربو هذه عابده تاريخ إسرائيل مكي حمر روا رافي ريق اللي قليل لقابه لنا سمال دوه ربشد سمو كرنية ريرك رساعه ولا اسكري حاقو نمر راعتان مره رسم ماليتي عركة يقى ريتك الله ساري رايحين تبين الله يا راحي وقوينه رقا إياها يركب وقوة روحي عرامها ربي العاسي وقت قوة سرف رغيان لله إذا قبل وانيقي موحي شريانه وتاسيدي ما يقرب ما يدعاه ما ترى مصالح الربان المجوسين ترى بقى المرتين وقلبك المحشدي سي يجي تبين ودراب نوبر خاطئه وما أنت قوسانية مدشي ويليله على كيغا مدبض عليه مدع توحيدك وما أنت يوميهم ما الفكار كينه مدنية مروبة ودراب مالك الله غير مناسبة غالي قال مدع وين رابطي ما موسكا إليه شعبك موجينا إياه مدح وين يلتري سيئة مدنة صاحبة واليوم تدعي نقول ونقول معسومايه واليوم مدنادين يعود الله موجايه واليوم مخلوق من المدعام ورالكي جناه ما موسى الكينا عليه مدحد الله دارتي مثل هي مسيحي ما حقه وين ما هاتشايه مسق ماسق ميرا الله المال اللي قول بابين والمقاتا جوكتا كبضا من نقول الله شيكتو سيما لله باعون بضا نقول نموق نيره مركضا إنو نالية دولة إنو سوى نارسا مسألة في عام بأن المدى كنت إلاني مرح دورشان اللي هرام ورلان ديلتي مسؤول كنا دورتي بشرة مريكا قاتيسي منك سيس وضا هاي ستان هذه لا هي ما شاء الله غرك الجمال كبه هقاقية ما شاء الله غرك الجمال كبه هقاقية من تاريخ الدولو هو عدو قدومة دوفاك كعيو مركن درجة نادية تكتغرق كوصوة قيمرة كوياقانا نقول الدعاية فرحة عند الله من تاريخ الدولو انت دولينا موشاي أديك يدد كانا معنا كما دول شوكسنو توفا وحقانية دليها لقاقري من تاريخ الدولو هذا اللي قدر دارو روينا درامين دولينا محمد قشي تغردي قميسك قوة نقدو قادة دركسو قيماتين مناسبة القالي قال سوقني من مانتا وعيتاي شرطون كمي laakiinse aynu soo hordhignay waxaa mas-uuliyaddaas qabaa dowladdeenna oo qiimaynaysa shareecadeenna qiimaynaysa oo dastuurkeennu caddaynayo inaynu diinta ilaahay dhowrnoo ilaalinno maanta dhin maynagu soo beegay 3 shay kadib iyadoo aynu xusayno habeennimo oo aynu xafladayn doonno waxaa loo soo qaaday maantoo bandhigna dhacay dhallinyaro haddii tahay hadday tahay urur bulshada hadday tahay ciidamada qaran kala duwan hadday tahay
حزابته قرن كدمان ما أنت وحوين معنا فرحات أو أنكم قيمينه إدين مي ما وحفظ سيفودنا كم يمن waxay ku tiri wada jir iyo waaltinimo waxay isugu tagay bulshooyintii qaranka Soomaaliland odayaal lahaa salaadiin lahaa min gees ilaa gees magaalada Burco ayaa laga dhawaaqay goonistaga Soomaaliland tamciid waxa weeyaan waa maalintii nabadda waa maalintii wada jirka waa maalintii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ugu mahadnaqay waqtigiin caalamku munaasabado badan baa iska jira maalmo badan bay shariicadu tilmaantay oo dhacdooyin dhaceen oo lagu tilmaantay yawm Xunayn yawm Badr maalmaha kala duwan noocaas kala ahaa dhacdo kasta oo dhacda waxa la xusaa taariikhda iyo keeda la xusaa sidaa darteed Eedin May waxa ku soo daba dhacdo aad qiimo badan oo soo beerato taariikhiya waxa weeyaan dagaal in la gaadiyay oo in naafeeyay magaalada burburay walaalo kala irdhoobay ayaa maalintaas ay midaysay way soo keentay min bari la galbeed waxay maalin ay dhamaanteen goosanay iyadoo odayaasheenu iyo salaadiinta iyo hogaansiyada iyo garaadadu ay horkacayaan ayaa dhammaan waxa lagu saxay magaalada Burco oo magaalada Jolo caasimada gobolka Togdheer waxa lagu ansixiyay oo lagu saxay maanta ay diin meeyta maalintii ay xorriyadeena qiimaha badneed ee Ingiriiska ay ku helay ka dhaxalay ee dib soo noqonay luntay marka maalinta ka fudud maaha maalinta ceedoga qolana ma laha qoysna ma laha waa ummadii Soomaaliland maanta wada leh waa maalin loo baahan yahay dhalinyarada in hortaagan inay dareento macnaha leedahay inay dareento waa maalinta xorriyadiina waa maalinta horumarkiina waa maalinta waxbarashadiina waa maalinta ganacsigiina xor baa maalinta noqotay weeye marka hoo qaadan inay tahay qoys kale ama qola gaar u leh ama isna ba gaar u leh maaha waxa uu la wada leeyahay waa maalin la wada sameeyay oo la wada maamusay oo taariikhiyan aanu cadaynay inuu ahay dad gobo oo gaar ah oo Soomaaliland la yiraahdo oo nabadda jacayl maanta u jecel lahayd waqtigiin 7 sano kadib aynu wali gacanta ku haynaa iyadoo xora oo xooga oo ciidamo leh oo dhalinyaro iyo aqoonyahan iyo saxaafad intaba oo madax bannaan leh ayuu taagay maanta marka cidna uga biqimayno haddii alla ka dhigo maanta in cid carashacayso waxba uga biqimayno halkan waxaan hambaliyay bogaadin ugu dirayaa ciidamada qaranka difaaca ku jira ee saaka la soo weeraray ee ilaa imaka difaaca qaran galay ee cadow ka haray waxay hayeen iyo waxay maxaan ku raadayay ku dagaalamayeen intaba waxaan leenahay والقلت هنا عيرماس قرنك هالكتابين عندنا قدرسني عندنا أنا وكدولي ولا حدود ديني ولما أيلنا هاي أنت أصلا كيلومترين كسوكيا أي هذا كان حكوت عنايين نبدأ جل تعين فحكوت عنايين يا نور وحبيت عند أصلية فحكوت عنايين الدفاع عن قرن مدينة الدفاع عن دوت عنايين لكن هو ينظروا ولهن أوجرانية أو كسي ما بوفهمية دبعتنا عيلنا عداود دبعتنا قدروا حتى لا يسوق عليه oo cad maxaa ku dhahday ku tala galay inay ku geeriyoodaan yaani gariya baqlaan u dhintaan waxa weeyaan waxaan leenahay ciidamada qaranka Soomaaliland aan garab taaganahay ciidamada qaranka Soomaaliland hore u socda ciidamada qaranka Soomaaliland waxaan leenahay waxa tihiin difaacayaashii koowaad ee qaranka waxaan ku codsanaynaa bulshooyinka reer Soomaaliland guud ahaan min bari la galbeed in loo diyaar garoobo difaaca qarankan in maxaa ku dhahdaa loo diyaar garoobo si moralka iyo waxtarka loo gaarsiin lahaa dhammaan haleeyada hortaagan maxaa ku dhahdaa taagan jida hore ee qarankan lagu difaacayo waxaan ku codsanayaa dhammaan saxaafadda iyo dhalinyarada iyo cid kasta weeyele in laga waantoobo ereyada la isdhaafsanayo horeysiyo soo dhaweynta madaxweyne ku-xigeenka halkan waa markii aan halkaasaan fadhiyay markii uu hadlayay Cabdikariim Xinif iyo gabaygii inta halkan ka tirisay waan qiirooday sababtaan u qiirooday waxa weeye reer Burca baan ahay Burcaan ku dhashay Burca iskuulka laga qoray iskuulkii laga qoray wuxuu ahaa Usmaan Cabdi Cali iskuulkiina hormaray Usmaan Cabdi Cali maamulahaygii buu ahaa ilaahay u naxariistay nin waan baa dilay sidoo markaan iskuulkiina ayaa maamulihii iyo mas'alay waati xalay la dilay waxaan ka markhaati kacayaa in Burcaan bari iyo galbeed iyo waqooyi iyo koonfurtoona iyo ciriyo dhulka kale iyo magacyo kale mid aanay lahayn maanta oo aynu xafladii 18 May dabaaldegayno cadow ayna hayo maanta cadow dawladeed bayna hayaa uma baahnin bari iyo galbeed iyo waqooyi iyo koonfurtoona uma baahnin in mudaharaad laga sameeyo magaalooyinka waaweyn uma baahnin in meelo kale shaqooyin ka dhacaan hadday ka dhacaanna looma baahna in la buunbuuniyo waxa weeyaan Burcay
de waa nasiib darro haddii maanta sidii halkan laga sheegay siday ahaan jirtay barco hadday noqoto iskuullo hadday noqoto waxbarasho hadday noqoto dadka isdhexgalkiisa hadday noqoto muxuu ahaaye siyaasad iyo aragti siyaasadeed burco meel ka ficlin ma jirin oo ka magac dheeray haddaynu maanta innaga isku soo hoos noqonnay oo wallaahi kaasina galbeed buu ka yimi kaasina waqooyi waa nasiib darro anigoo ah nin reer burcaa reer tugdheera oo halkan maanta mas-uuliyad waddanka u haya inay magaaladeydii iyo gobolkaygii ay waxaasoo kale aan ku maqlaa waa runtii waa waxaan aad uga xumahay waxa weeye burco dee garaadkii iyo maskaxdii lagu ogaa kamay guurin wuxuu dadkii ku dhalin jiray ama ku deganaa ama ku noolabaa noolyihiin laakiin waxa weeye warxumo tashiil baa inagu dhex jira oo dadka kala dilaya haddii aad raacdo kaa dee marhaloodaadna waxaan doonayaa inaan burco idhaahdo burcoy dib isugu noqo maanta burco anigu meel alaala meeshan doona mari karaa meeshan doona geli karaa asxaabtaydu waa meel walba way ka yimaadeen guri aan asxaab ku lahayn ma jiro maxaa inoo diiday inaynu markaas sidaas isku wada nahaano maxaa ii ogolaanaya inaan mid aanu isku reernahay inuu yidhahdo wallahi innagaa isku reereen kaasi waa reer kale waqooyi buu ka yimi inaan waxba iskuma lihin aniga qofkaanu isku danta nahay ee aanu isku aragtida nahay ninka reer burco ee bariga ku nool ama waqooyiga ku noolay soo burco kuma noola burco dadka degani waa isku dan ku faraxsan alle ha ku hambalayna ummadda reer somaliland inay maanta meel walbay joogaan ay uga dabaaldegayaan maalintii ay garteen inay dib uga soo noqdaan xorriyaddooda oo ahayd 18 May 1991kii oo laga dhawaaqay magaaladan burco ee maanta joogo anigu iyo waftigeygu oo nasiib u helnay maanta inaan halka ka dabaaldegno meeshii laga dhawaaqay ee aabbayaasheen kaga dhawaaqeen ee qaarkiin awoyaashiin kaga dhawaaqeen ilaahay baa mahadnaqaas waxaan leeyahay daba reer burco hambaliyo gaar ahaan hambaliyan laa marka hore wadajir ku dabaaldega wadajir ku ciida marka labaad sida somaliland waxay goosatay inay qarannimadii la soo noqoto waxaan leenahay sida taariikhda laga warramay 1991kii iyadoo dhibaato dagaallo iyo maaragta dagaallo sokeeye iyo ummadda reer somaliland la qaybiyey oo wakhtigii rijiimkii jiray ama dowladihii rijiimadii ka jira afrika oo dhan aan ka mid ahayn ee ciidamada horseedeen inqilaabadii ciidamada ka dhacay maaragtay 70-nadii ilaa 60-nadii ilaa 70-nadii afrika oo dhan ka dhacay ee u horseeday dhibaato badan iyo maaragtay caburin badan iyo cadaadis badan kadib markii maalintii ay duntay dowladdii kelitaliska ahayd ummaddii reer somaliland waxay ku go'aansatay inay xornimada ay lahayd dib uga soo noqoto waxay gaadhay inay dib u heshiisiin dhammaystiran ummadda reer somaliland gaadho in ummaddii isdishay ee walaalahayd ay ka noqdaan xaleydhalay 2 sano 3 sano gudahood ay ka noqdaan in shirar badan la iskaga dabqaaday berbera burco boolama 93 shirkii ugu dambeeyey ee cagaha lagu joojiyey ummadda reer somaliland inay qaran buuxa noqotay waxay gaadhay dib u heshiisiintii markay dhammaysatay dib u dhis qaran ayay somaliland gaadhay in qarankii hay-adihii kala duwanaan la dhiso oo allah u naxariistee wuxuu maxamed xaaji ibraahim cigaal madaxweyne wakhtaa ku beegmay runtii cagaha u joojiyey iyadoo snm 2 sano si xaraga leh wixii doonay dhibaato ama dhacdhaca ha dhaco 2 sannadood laakiinse si xaraga leh ay dalkii ay maaragtay xoreeyeen si xaraga leh ugu wareejiyeen 93kii dowlad hayada oo hogaaminayey isna allah u naxariistay maxamed xaaji ibraahim cigaal waxaan ka markhaati tahay adduunyadu inaan intaan sii dhaafnay dhismihii hay-adaha dowladda inay ilaa heer dimuqraadiyadeed ay ummadda reer somaliland ku tallaabsatay inay dastuur samaysatay inay codayn laga qaado ummadda reer somaliland ay 7% ku codeeyeen inay qarannimadooda ay taageersan yihiin oo dib la soo noqdaan ay dastuurka ku ayideen inay somaliland tahay qaran madax bannaan taana waxaa ka sii dambeeyey in doorashooyin xor oo xalaala ood og tihiin oo maanta dhalinyartiina hor joogtahay haddaad wixii hore wada haynin dhalinyarta maanta daada 30 jir iyo wixii ka yari laakiin saad markhaati ka tihiin
tallaabooyinkii dambe ee iyo dimuqraadiyaddii ka soo qayb qaateen 6 doorasho oo xor iyo xalaala oo ka dhicin dowladaha calanka harsada jimciyadda qurumaha ay ka dhacday Somaliland waxaan leenahay beesha caalamku inay iska dhagatirta maaha 4 milyan rabitaankooda iyagoo maartay himiladu ah inay qaran madax banaan noqdeen iyagoo horeba ahaa 1960 laga wixii ka horeeyay ay ahaayeen maxmiyadii ingiriiska ay Somaliland oo xuduud gaar ay leedahay oo dad gaari ku nool yihiin waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad ba beesha caalamku inay iska dhagatirto qarannimada Somaliland iyo rabitaanka shacabka Somaliland maaha wixii dhexdeeda yaala waxa naga noo Somaliland wixii dhexdeeda yaala waa waxa naga noo yaala hadaan maanta hay ninkii labada qaranka waxaan madaxweynaha ka wakiilana wixii dhexdeena yaala haday bari tahay haday galbeed tahay haday dhex tahay waxba kala sheegnaa wixii dhexdeena yaala inaga dhamaysanayna wax inaga xumaanayana ma jirto tabashada adduunyada mar walba ay jirtaa tabashada mar walba dhagahayga u furan haddaan ka soo bilaabo sool walaalahayga sool waa suuragal tabashaa jiri karta hadday burca dhexdeeda tahay inaan dhexdeena wax kala tabanaa jiri karaysa hadday odol tahay tabashaa jiri karta laakiinse maaha midaan ku dumino iyo midaan sharafteenna iyo nabadda maantaan haysanno oo wixiina soo maraan ogeyn midaan ku dumino maaha iyadoo aan ku dhammaysan karno wada hadal iyo walaalnimo iyo miisaan wada fadhiisanno marka ummadda reer Soomaaliya meel joogtaba waxaan ugu baaqayaa ama ku dardaarayaa dardaarankii baan galayaaye in beelaha walaalaha isdilayaan ay joojiyaan colaadda inteena kale ee maartay wax kala tabanaysaana aan miiska wahalka ku wada hadalno waxa weeyaan maanta hawsha halkeenu maran iyo nabadda iyo quruxda haysan sharafta haysanno waxay idhi oday bari abaad laga soo doogsaday ayuu safray markii abaadta laga soo doogsaday oo reerkiisu safray kolkuu safray ka soo noqday iyo islaantii markuu u dhiibay garowgii iyo wixii soo hushay ayaa wuxuu yidhi mulaaxoy wixiina gaadhay waad garanne garaan 2 jeer inoo kari buuri wixiina gaadhay waad garanne garaan 2 jeer inoo kari reer Somalilandow wixiina soo gaadhay ee dhibaato dagaal iyo qax iyo maartay dagaal sokeeye iyo ku sheeynteena soo qabsaday waad garan karaysiin dhalinyarta maanta inta hor joogtay inta maqlaysan waxa leeyahay war waxa u dhaga xaraamina in yaroo dalle oo iyo isla wax ku gilgisha ayaa waxaan naga dhex wada inaad waxa dhageysataan maaha kuwa bari dhibtu u dhacaysaana waa haweenka hooyooyinkiin walaalihiin iyo dhalinyartiinaas oo dhibtu u dhacaysa waana ka hortagnaa waxa weyn doorashooyin galay doorashooyinkii wax khalad laga fahmay doorashooyinku waxa weeyaan waa ummadda inay waa system wax lagu kala helo laakiinse maaha mid la isku dilo waxay laba nin baa aad u legdamay kuwa is legdamayna maartay waa til ciyaar jiray dabadna ninkii uu legday uu xanuuniyay markaasuu waa mad kala dhamaysaa midil baa u bedeshay buuri inuu qaado doorashada inay dilma tahay maaha waxa weeyaan waa ciyaar doorashada wax lagu kala helo kolkay dhamaatana way la saamaxayaan doorashada way naga dhamaatay maanta ragga siyaasiyiinta ah ee rabayna maanta dalka ku qaybiyaan in kursi ay doonayaan kursi qofku rabay inuu madiis ku qaybsho iyo inuu ugu horseedo halaag iyo dagaal iyo masiibo waxaan leenahay ilaahay baa koos ka taasi ilaahay baa ka magan galnay annagu haddii ilaahay maanta inta mas'uuliyadda u qadaranahay ma aan kuma fikirayno nagumana jirto in ummadda reer Somaliland kala jecelaysano in ummadda reer Somaliland kala qaybino in kala xigtaysano in nabadda maanta jirta adkayno in horumarkii jira si kordhino taas naga balama walaalayaal war dagaal wad garas wuxuu yahay wixina soo maray wala garanayaa dagaal yaan saan burco sheega burco de burco wax la yaqaan isku duubano burco laga badi ka xanaaq jirtay kelmadda ka xanaaq jirtay marka burco laga badiyay burco dhan xanaaq jirtay ma qaybsanayeen meeda qaybsaneen ciyaarihii Soomaaliya goboladii waxa ay ugu horeey jiray togdheer marka la hado ay soo gasho de kelmadda inta badan halkay soo gaartay wala yaqaanaa dadkii noocaha maanta inaad kala qaybsataan idinku isku abtiya idinku ilmaadeera idinku isku heela waa nasiib daro aan waxa gaar ugu dardaaray reer burco maanta waxa tiin waa nabad degantiin nimcada Soomaaliland
qaybtiina waad haysataan eerboodka wixii dhimanna waan dhisaynaa eerboodkii maanta labaad ee maanta hargeysa ku xigaama ee lacag somaliland gelisay maa muddada xisbiga kulmay joogay waa eerboodka aan joogno maanta ee burcaweyn lacagtaan gelinayna maanta sharaftiisa eerboodka kuma wareegsana eerboodka hargeysa deed dhagax kuma wareegsana silib baa ku wareegsan kaa maanta deel baa ku wareegsanoo $100 milyan baa la geliyey horumarka waa ka shaqaynaynaa idinkuna waxaad ka shaqaysaan midnimadiina iyo walaalnimadiina waad ka shaqaysaan iyo nabadda waxaan u gudbayaa ciidamada qaranka ee maanta jiidda hore gacanta ka gartana soo weerartay sida wanaagsan u difaacay aad iyo aad waxaan ugu dhiirigelinaya inaan daba joogno haddaynu raysoo maadaama madax iyo mijabo inaynu daba joogno inaan iyaga iyo carruurtoodaba daba joogno daryeelayno ayaanu aad iyo aad ugu buureynaa waana ku hambalaynayaa inay dhirbaaxaada ku dhufteen cadowgii ku soo duulay ee islahaa ka faa'iidayso dabaaldeg bay ku jirtaa somaliland maanta ka faa'iidaysa islahaa dhirbaaxada ay ku cesheen iyo difaaca ay galeen aad iyo aad baan ugu hambalaynayaa meelay joogaanba hadday cidi ku dhimatana intii naga dhimatana aloo naxariisto wixii dhaawacana ilaahay waxaan u rajaynayaa in maaragtay boggooda gacantooda gacan malaa'ika ilaahay mariyo ilaahay degdeg u bogsiya ka baryaa inta kale ee maaragtay macno darrada gudaha dalka gudihiisa ku dagaalamaysana waxaan leega laalayaal dagaalka hala joojiyo danteenna ha loo soo noqdo walaalku meel ku kala tegayaa ma jirto walaalku iyo ummadda meel ilaahay ku wada abuuray midna burca ma kala guurayso ceerafo ma kala guurayso laascanood kala guuri mayso magaalo kasta oo ummad ilaahay meel wada dhigaaye ma kala guurayso markaa mar haddaan la kala guurayn waxa weye in wixii ina baabiinaya ama ina xumaynaya ama waxa noo dhimaya inaan ka wada dagaal galno waxaynu u baahannahay ummadda reer somaliland hadal ku gabagabaynayaa rag iyo dumar dhallinyaro iyo carruurba iyo waayeelba in la ka wada hawlgalno sidaynu colaadaha u damin lahayn sidaan midnimadiina u adkayn lahayn sidaan maaragtay aan qarankaa iyo himiladiis maanta aad u muuqato oo maanta halkaa iftiin weyn baa inoo muuqda garaabis beeshii caalamka inoo garaabayso sanadba sana ka dambaysa yaa muuqda waxay soomaalida hore tiri waa la doogaya la dacaroonin yaa la dacaroonin hadday maanta shaqalaan baahsana jirto waxa la akrinayaa ma jirtee waa inta somaliland ka dhiman unba dhageertana ka dhiman waxaan rajaynaynaa wax badan isbedeli doonaan insha allah maalgashi badan baa soo socda dadka xagga xunuu loogama horraba rajana in loo sheego weeyaane rajo badan baa jirta boqolaal kambani baan rajaynaa sanadka ilaa sanadka dambe inay dalka maalgeliyaan in laynoo soo shaqo tago insha allah ayaan rajaynaynaa marka waxaa la ummadda reer soomaalida gacmaha isku qabsanno ilaalinta nabadgelyadeena horumarka dalkeenna wadajirka iyo midnimadeenna aad iyo aad baad maasantay asalaamu calaykum waraxmatullah